inta aan miisaaniyadda ka hadlin inaan ka hadla in ay u baahan tahay baarlamaanka in la saxo asaga baarlamaanka sababtoo ah ma aqaan xildhibaanada waxaan u maleynaa inay ku kala jiraan dad laandheerayaal iyo dad laangaabayaal ah waxaa arkaysaa nin ayaa soo istaagayo wuxuu hadlaa hal sac mikrofoonkana lagama wadamin karo markii sababta waxaa laga yaabaa in laba tiknik ama saddex tiknik banaanka ay u taagan tahay laakiin annaga tiknika ma wadano mogta dhaqsiyana laga daminaa markii 2 daqiiqo la taagan yahay waa la daminaa baashaa la daminaa marka waxaan ka codsanayaa guddoomiyow ilaahay subxaanahu wa tacaala adoo ka cabsanaya ee fiirinaya cadaaladda haddii aysan xildhibaanada baarlamaanka aysan wada sinnayn noo sheeg tiknikadaan raadsanaynaa bannaankaan dhiganayna annagana waxaan kaloo rabaa inaan isku sheegno markaan runta ka hadalno waa u jeedaan waxaan u maleynayaa shaqaale hoosaadka baarlamaanka inay dad qaas keensadeen sababtoo ah adigoo ugu horeeyo wuxuu ku gaarsiinaa kan ugu dambeeya inaad noqotid waxyaalaha cadaalad darada aan idiin sheega marka goormeen wasiir xisaabinaa annagaa u baahan inaan isxisaabinno oo issaxno marka annaga issaxnaa wasaaradaha xisaabin karnaa annagaaba qaldanba oo dulm isku dhex samayneen middaas markaan ugu baxo waxaan codsanaa guddoonka baarlamaanka inay u wada sinnaadaan xildhibaanada oo dhan inay isku mid yihiin waxa aan meel yar tusaale idinkaga tusaa shalay mee daraad baarlamaankan soo galaya xildhibaan aniga asaagiga ila socday baabuurkiisa inta imaaday keega xaq ku dagaalay dhahay cadaalad miya waa cadaalad daro marka arrinkaas waxaa laga sugaa insha allah guddoonka inay saxaan waxaan rabnaa midda markaan usoo jeesto wasaaradda waddankan qof aan gacmogacmeynin ma jirto waa la gacmogacmeeyey boob dhac annaga xildhibaano cusub aan nahay bahasha hadday kow noo tahay waxaan guddoonka ka codsanaa haddii la dhaho waa la isxisaabinaa 9% waa la xirxiraa waddanka ayadoo bahasha aan la sii faagfaagin in layska fasaxo wasiirka shaqadiisana wato waxaan aaminsanahay waddankan corruptionka ku badan iyo musuqa corruptionku hadda waxaa la yidhi budget iyo dhaqaale adduunya laga hadlaa budgetka dhaqaale yaa la siiyaa nin kastoo in adeerkiisu gacanta ka saaraa mid tusi kartaa wax uu ku baxan si nidaam ah ma jiro budgetka weliga maaragtay lacag budget meel ku baxayso waxay oo dhan waa u jeednaa inay qaldan yihiin laakiin haddana waxaan ku jirnaa baarlamaanka haddaan wasiirkii imaado aanan ka daba harin wuxuu samaynayo aan bannaankaas soo dhigi doonaaye middaan ha la iska fasaxan dhiilaa